wacan daawadayaal ku soo dhawaada warka Wacyi TV qodobada ugu daran waxaa kamid ah xasuusta musiibadii 14 Oktoobar oo maanta la xusay gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Shabeellada Dhexe lagu dilay Jowhar iyo madaxweynaha Waare oo ka tacsiyay meydka wiil Soomaali ah oo ku dhintay diyaaradda Ethiopian Airlines oo Muqdisho la keenay qodobada dibadda warkan aad ku daawan doontaan maantana waxaa kamid ah Sacuudiga oo dalkiisa u ogolaaday dalxiisayaasha ajnabiga taas waa qodobada ugu daran warkan aad maanta ku daawan doontaan ku soo dhawaada imakan iyaga faahfaahsan kana qodobka ugu horeeya warkeena magaalada Muqdisho gaar ahaan isgoyska 14 Oktoobar loo yeeqan ayaa waxa ka dhacday munaasabad lagu xusay dadkii ku dhintay xasuuqii ka dhacay isgoyska Soobe ee Muqdisho munaasabada ayaa waxa ka qayb galay madax ka tirsan dawladda Soomaaliya ugu horeeya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamed Filish ee gudoomiyaasha degmooyinka iyo boqolaal shacab sidoo kale waxa goobta ka hadlay madaxda ugu sareysa dalka oo halkaas ka jeediyay khudbado ay uga hadlayaan musiibada 2 sano ka hor ka dhacday isgoyska 14 Oktoobar ee Soobe ciidamada ka tirsan kuwa booliiska Soomaaliya ayaa maanta xir wadooyinka ugu muhiimsan ee socodka gaadiidka iyo dadweynaha Muqdisho ammaanka guud ee magaalada ayaa si weyn loo adkeeyay maanta gaar ahaan wadooyinka soo galaya kuwa ka baxa 14 Oktoobar ee Soobe weerar bambaano ah oo xalay lagu qaaday guriga magaalada Jowhar ka deganaa gudoomiye ku-xigeenka amniga Shabeellada Dhexe ayaa sababay dhimashadiisa Maxamed Cabdi Sugaal ayaa xilli ku sugnaa gurigiisa waxa lagu tuuray bam gacmeed kaas oo sababtay inuu halkaas ku geeriyoodo waxa soo kale sheegay inuu weerarka ku dhintay wiil uu dhalay gudoomiyaha qaraxa ku dhintay xilligaas ay isku meel joogeen war qaraar oo ka soo baxay xafiiska madaxweyne Maxamed Cabdi Waare ayaa loogu tacsiyay geerida marxuumka madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo ku hadlay afka golayaasha dawladda iyo kan shacbiga Hirshabeelle ayaa ka tacsiyay geerida Allah u naxariiso gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Shabeellada Dhexe marxuum Maxamed Sugaal Cismaan iyo wiil uu dhalay oo u geeriyooday bam gacmeed ay rag hubeenayeen ku weerareen gurigiisa magaalada Jowhar ayaa guud ahaan xasilooneyd sanadihii u dambeeyay marka loo eego weerarada ka dhacay wadooyinka magaalada soo gala 12 bishii September waxaa qarax la eegtay agagaarka deegaanka Golley gobolka Shabeellada Dhexe gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda ee gobolka waxa soo kale weerarkaas ku dhintay wasiirka hore ganacsiga Hirshabeelle iyo saraakiil kamid ah hay'ad samafal iyo ciidan ilaalinayay isla maalintaas weerar ka dhacay Golley waxa lagu dilay 12 kamid ah ciidanka Burundi ee qaybta ka howlgalka midowga Afrika AMISOM ee Soomaaliya madaxweynaha iyo ku-xigeenka Hirshabeelle ayaa dhowr jeer hore dawladda federaalka ee Soomaaliya ka codsaday in laga gacansiiyo dagaalka ka dhanka al-shabaab iyadoo madaxweyne Waare uu sheegay in dagaalkii al-shabaab ay ka wadeen Shabeellada hoose ay wareejiyeen gobolka Shabeellada Dhexe Cabdishakuur Maxamed Shahaad oo 7 bilood ka hor ku geeriyooday burburka diyaaradda Ethiopian Airlines ayaa meedkiisa maanta la keenay Muqdisho shaybaarka dhicaanada jirka ee loo yaqaan fluorescent science ayaa lagu helay meedka marxuumka ayaa sarkaal ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu ku jiray 175 qof oo shirka diyaaradeed naftooda ku ay bishii Maarch ee sanadkan dhammaan dalalka ay ka soo jeedaan dadka ku dhintay shilkaas diyaaradeed ayaa haraadiga meedkooda lagu wareejiyay dawladda Kenya oo kamid ah dawladaha muwaadiniinta ugu badan uga dhinteen shirkaas ayaa shaacisay in khamiista toddobaadkan ay aas qaran u sameyn doonto meedadkii lagu wareejiyay haatan qodobka dibadda Sacuudiga uu qaatay oo ah inuu albaabada u furo in loo dalxiis tago goobaha dalxiiska dalkaas ayaa si weyn u soo jeedatay dalxiisayaasha goobaha dalxiiska oo hadda ka hor dalxiisayaashan loo ogolaan ayaa hadda ah mid ay dawladdu fasaxday haddaba maxay yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan ee qofka u dalxiis taga Sacuudiga Carabiga oo arki karo waxyaabaha ugu muhiimsan ee xusidda mudan ayaa waxay tahay cimilada dalkaasi 8 bilood kuleyl ah dalkaasi aan wali lahayn furfurnaan siyaasadeed xorriyatul qowl iyo xiirado qaar oo wali haweenka saaran si la mid ah wadamada bariga dhexe haddaba waxaa xusid mudan dalka Sacuudi Carabiga inuu yahay dal leh bee'ad ka duwan dalalka kale oo waliba soo jeedasho leh dhulka Sacuudi Carabiga intiisa badan waa saxaro haddaba qayb ka mid ah dalkaasi waxa uu leeyahay buuro aad u waaweyn sida buurta Asir oo dhererkeedu yahay 3,000 mitir oo ku taala koonfur galbeed dalkaasi quruxda badda suuqa khudaarta ee Jidda iyo waxa la mid ah hase yeeshee haweenka sheeye ee dalxiiska lagu khasbi maayo inay xidhaan cabaayadaha madow ee jirka qariya ee dumarka Sacuudiga xidhaan laakiin sidaas ay tahay ayaa in labis anshax ka muuqda ay qaataan
haweenka dalxiiska ayaa haweenka dalxiiska u taga lagu qasbaayo inay maxram qaataan. dhaqan baanu leenahay, waxaan rumaysanahay in asxaabtayada iyo dadka dalkayga soo booqanaya ay tixgelin doonaan dhaqanka, waana xaqiiq inuu yahay mid xishmada dadka fara arrintaas wayna iska cadahay ayuu yiri Master Khadiib. dadka aan muslimka ahayn loo ogolaan maayo inay tagaan magaalooyinka barakeysan Maka iyo Madiina, khamriguna sidiisii ayuu mamnuuc ahaanaya. intaas ayaan ku soo afbeernaa warkii aad kala socoteen Waci TV maalin walba hadaaya kala tan iyo kala dambe nabaddiino. Waci TV waxa uu taagan yahay soo bandhigida wajiga wanaagsan ee dalkeena iyadoo laga fogaanayo wax kasta oo sumcadil u keenayo wadankeena. Waci TV waxa ay idin duubayaan xayeysiimaha ku saabsan goobaha caafimaadka, waxbarashada, ganacsiga iyo dhammaan hawlaha aad sida gaarka ugu baahan tahay. muwaadin ku xirnaa muuqaalada uu soo gudbinayo Waci TV si aad u hesho wax badan oo ka dahsoon. Waci TV waa TV ugu adeega bulshada si furan, waana caawiyaha dhalinyarada hal-abuurka leh ee jecel inay helaan cid ka caawisa meesha ay ku soo bandhigi lahaayeen xirfadahooda gaarka ah. Waci TV waxa uu ku suuragelinayaa inaad si toos ah kala socoto dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee caalamka. TV-gu ngordo Waci TV meebaha kiin gudbiyay barnaamijyada xiis geliyo oo inay iska jaraan barnaamijyo koran qaado diinta, caafimaadka, walbarashada iyo aano ku sii tir badan. ma doonaysaa inaad heshid cid ka caawisa muuqaalo aad u heer sareeya oo soo jiidasho leh, fadlan la soo xiriir Waci TV.